2026-2027 Liverpool ayaa dardargelinaysa qorshaheeda ku doonaysa inay kusoo iibsato Adam Morton oo ka tirsan Crystal Palace inkastoo ay jiraan walaacyo la xiriira heerkiisa difaaca sida warbixinta ugu dambeysay sheegtay. Reds ayaa la ciyaari doonta Manchester City koobka FA Cup-ka Sabtida waxaana tartanka uu noqon doonaa mashquul ay kaga jeestaan dhibaatooyinka Premier League. Kooxda uu hogaamiyo Arne Slot ayaa ku jirta kaalinta 5aad ee horyaalka balse waxay dhibco lumiyeen 17 ka mid ah 31 kulan ee ay ciyaareen iyagoo kooxda laga adkaaday 2-gool kulanka ay la yeesheen Brighton Hove Albion 21 Maarso. Tababaraha ayaa cadaadis saaran yahay inuu natiijooyinka hagaajiyo balse xidigihiisa ku jira kooxda ayaa dhaawacay awoodiisa uu Liverpool ugu dhigi lahaa koox ku tartanta horyaalka gaar ahaan khadka dhexe. Football Insider ayaa sheegtay in kooxda Liverpool ay qorsheynayso inay dardar geliyaan dadaalada ay ku doonayaan saxiixa xidiga Palace ee Everton iyagoo dhinaca iska dhigi doona